أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta insha allah waxaan ka hadli doonaa cashar la xiriira leylatulqadriga. leylatulqadriga sida aayadaha hadda aan maqlaynay, allah jala wacala wuxuu ku leeyahay leylatulqadri khayru min 1000 shahrin. kun bilood ayuu ka khayr badan yahay habeenka leylatulqadriga oo u dhiganta 83 sannadood iyo wax la jira. marka qofkii nasiibkiisu wanaagsanaado ilaahay waafajiyo subxaana watacaala, ilaahayna barya oo camal wanaagsan sameeya, habeenka isagaa wax weyn ayuu gaaray, faa'iido weyn oo runtii aan faa'iido ka dambayn ayuu la kulmay. marka ilaahay noo aqbalo, ilaahay nagu hanuunsho habeenkaas inaan camal wanaagsan samaynana ilaahay hana tuso subxaana watacaala. af walba iyo luqad walba ayaa ilaahay lagu baryi karaa, luqad walba ilahay wuu yaqaanaa subxaana watacaala. marka ilaahay aan barino, ilaahayna naga aqbalo, aamiin. maanta waxaan ka hadli doonaa leylatulqadriga. leylatulqadriga waxaa ka hadlaya qur-aanka kariimka ah iyo axaadiista nabiga sala allahu alayhi wasalam. qur-aanka haddii aan ku horeeyo, waxaa ka hadlaysa 2 suuradood ama 3 suuradood aan idhaahdo. suuradda la yidhaha suura qadri oo suuradda 97 ee qur-aanka, iyo suuradda la yidhaha dukhaan suuradda 44 ee qur-aanka aayadaha ugu horeeya, iyo suura baqara aayad ku jirta iyada naftirkeedu. aayadaha haddii aan u galo, waxaa ka hadlaya toos uga hadlaya 8 aayadood ayaa si toos uga hadlaysa. 2 aayadoodna waa lala xiriiri karaa. marka sidaas ayay ku noqonayaan 3 suuradood iyo 10 aayadood ayaa ka hadlaysa leylatulqadarka oo la xiriirta. marka waxaan gelaynaa haddii ilaahay yidhaahdo qaybta axaadiista ayaan gelaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. waxaan jeclahay inaan soo qaato xadiis uu soo saaray sunan abi daawuud oo saxiix ah, sheekh albaani uu saxiixay, aadna ka helayso saxiix bukhaari. xadiiskaas waxaa iskale asxaabi weyn oo la yidhaahdo abi saciid alkhudriyi, ilaahay ka raalli ahaadee. abi saciid alkhudriyi wuxuu leeyahay nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa caado u ahayd inuu ictikaafo xilliyadii hore ramadaanka bartamihiisa, macnaha 10ka dhexe ee ramadaanka ayuu ictikaafi jiray nabigu sala allahu alayhi wasalam. waan la ictikaafi jirnay uu leeyahay oo waan la joogi jirnay. 10ka dambe macnaha ma aysan ictikaafi jirin way macnuhu, 10ka horena ma aysan ictikaafi jirin. marka wuxuu leeyahay markii aan dhamaysanay ictikaafkii oo 20kii maalmood ay noo dhamaatay, ayaa wuxuu yiri nabigu khudbeeyay subaxdii dambe haddii ilaahay yiraahdo. markaas wuxuu yiri qofkii doonaya inuu la ictikaafo ha sii joogo oo macnaha ictikaafkii ha sii wato, sababtoo waxaan arkay buu yiri leylatulqadarku inuu ku jiro 10ka dambe oo ramadaan. sidaas ayuu nabigu u sheegay asxaabta sallallahu alayhi wasallam. wuxuu kaloo u sheegay inuu hilmaamay maalinka oo uusan xasuusan ama la hilmaansiiyey, laakiin uu og yahay inay ku jirto habeenada witirka ah oo bish 10kaas dambe ku jira. waa 22ka 23ka 25ka 27ka 29ka intaa laga raadsho. wuxuu kaloo nabigu sii raacshay intaas inuu og yahay inuu ku sujuuday habeenka leylatulqadarka subaxda ka dambaysa meel dhooqa iyo biyo ay yaalaan, inuu ku sujuuday. intaas inuu og yahay ayuu nabigu u sheegay asxaabtii. marka abi saciid alkhudri wuxuu leeyahay habeenka bisha 22ka ay ahayd, xadiis bukhaari ku yaala, maba lahayn cirku saxaab. mar dambe ayaa saxaab iska yimid, macnaha caada iska yimid ama daruuro qof sida u yaqaano. markaas roob fara badan u yimid, masaajidka ayaa biyo soo galeen uu leeyahay. marka subaxdii markaan tukanaynay, nabiga sala allahu calayhi wasalam wejigiisa aniga arkay yuuri, dhooqo iyo biyo ayuu lahaa yuuri. sanka nabiga iyo wejigaba dhooqa uga tiilay yuuri iyo biyo oo ka dhalatay roobkii da-ay. sidaas awgeed 22ka bishu waxay tahay habeenka leylatulqadriga. saasuu ku tegey. waxaa jira xadiis kale oo isna culus oo uu soo saaray saxiix muslim. waxaa laga wariyay asxaabi weyn oo la yidhahdo ubay ibnu kacab oo runtii ahay raggii xufaadda ahay oo qur-aanka xifdsanay, kana mid ahay raggii farakutiriska ahay oo qur-aanka qoray oo qur-aanka qori jiray, isaga iyo cabdullahi ibnu mascuudba. marka ibnu mascuud iyo isaga ayaa ka doodeen leylatulqadriga. marka ibnu mascuuda wuxuu kusoo jeedshay ra'yi ah sanadkoo idil laga raadsado leylatulqadriga. ubay ibnu kacab ayaa arrintaa diiday oo wuxuu yiri ilaahay baan ku dhaartay. uu dhaartay weliba si weyn ayuu u dhaartay. wuxuu yiri waxay ku jirtaa bisha ramadaan leylatulqadrigu, waxay kale kusii jirtaa 27ka bisha ramadaan. nabiga ayaa sidaas nagu amray yiri inaan sidaas samayno, sidaas ayaana sax u yiri. marka labada xadiis oo laba xadiis oo waaweyn ayaa jirta. marka waxaan gelaynaa haddii ilaahay yiraahdo quraanka. walaalayaal, quraanka waxaan idin cadaynayaa quraanka aayadihiisa, nambarada suuradaha, xuruuftiisa kulligiis waa miisaan rabbaaniya weeyaan ayuu saaran yahay. mar wax alliyaale iyo waxaad u baahato haddaad fikirayso oo sida abi saciid alkhudri loo xisaabtamayo loo fikirayo, waxa weeyaan waad helaysaa wax alla waxaad uga baahantahay waad ka helaysaa. marka ijtihaadku nagama reebana, waan ijtihaadayna haddii ilaahay yiraahdo. maanta waxaan raadinaynaa xisaab wax ku raadinaynaa haddii ilaahay yiraahdo oo quraanka bal waxa uu kaleeyahay macnaha leylatulqadriga.
بسم الله الرحمن الرحيم ربي وحو أرنيا آيات سورة بقرة كجرت بقول سيدتني يشن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بشهر رمضان وبشهر القرآن كان سود الجو إلهي سبحانه وتعالى ما شاء وحك بحية رأيال ضد بدن وإقبان بشهر رمضان كهر رئيس شعبان اللي يراهدو شيء تمن كذا أيا ليلة القدر كجرة أما وقت حسابته وحيوان وعاس كجران إن وحك لو جرة تدي هذا السنة كو إدل أيوم يلا مرد على ليلة القدر وحبها صدقا كنت دليل الله ما هيو أيضا وحشيجي رمضان إن قرآن كو سودجي رمضان كرا ما لفر بدل الله وحكوا شيء ليلة القدر كله كجرو مركا أيضا نمبر كذا نمبر هذا أي عجيب أرنتي قرآنك أيضا نمبر هدود بقول سيدتني سنة قرية بقول في رصدية وحنتجينا أيضا كحكته وكهذا يسودجي تانك قرآنك سورة فرتنا أفراد أيضا سيد حث ربي وحوليه إن أنزلناه في ليلة مباركة هبين بركيسنا أيام قرآنك سودجني أيوليه وهبين وصدح أيضا وخذ الصنية وحنتجي أيضا وقدم بيسوا الله ليه هي إن أنزلناه في ليلة القدر قرآنك وحسود الجني هبين ليلة القدر وأيضا كواد ويان كو أيام قدرية بقول سيدتنا سجال ماركتين وعن رادين يا نمبر لوقي بكرو حاجين كينيا ليلة القدر سجال حرف ويان بشونة وسجال ويان ورمضان مركو حنو قيبي كرا سجال نمبر أيام قيبي كرا سجال نقيبين إياه كوي لو تماركتها سبحان الله العظيم haddii kaleeto 189 waxaad u qaybi kartaa nambarkii cajiibka ahay oo 7 ahay 7 ku soo baxday maaragtaa wax la yaab leh weeyaan labadiiba meeshaan aad ka heshay intaas waxaa dheer xarfaha ay ka kooban yihiin aayadaha ka hadlaya macnaha suuradan oo idil waxay ka hadlaysaa leelatul qadriga waxay ka kooban tahay xuruufteedu idil 115 xaraf ay ka kooban tahay haddii aad tiriso 3 aayadood oo ku jirta suurada dukhaan aayada 3aad aayada 4aad aayada 5aad si toos ah ayay waxay uga hadlayaan leelatul qadriga habeenkaas barakaysan haddii aad ku darto aayadaheeda oo noqonaya 74 saddexdaas aayadood waxay isku noqonayaan 189 subxaanallahi alcadiim caadi ma ahan sidoo kale 21 waad ka helaysaa 27 waad ka helaysaa wax la yaab leh weeyaan intaa waxaa dheer suuradan maadaama ay ka hadlayso leelatul qadrka kulligeed aayadda ugu dambaysa rabbi wuxuu leeyahay salaamun hiya macnaheedu waxa weeye tilmaan toos ah oo iyada la tilmaamayo weeyaan marka waa arrin in lagu baraarugo mudan aayadda nambaradeeda nambarka aayadda iyo suuradda nambarkeeduna ayaguna ciyaar ma ahan marka nambaradan ayaa waxaan gelinaynaa xisaab oo waxaan leenahay 9 lagu daray 7 lagu daray 5 22 maaragtaa subxaanallahi alcadiim intaa waxaa dheer suuradan aayadda koowaad alqadri suuratul qadri aayadda koowaad haddii aad tiriso xarfahay ka kooban tahay 22 xaraf ay noqonaysaa alifay ka bilaabataa suuradaanu alifka suuradaas alqadri oo dhan ku dhex jira dhammaantiis 22 alif uu noqonayaa subxaanallahi alcadiim wax la yaab leh weey aayadaha ku soo hara aayadaha laga soo bilaabo suura baqara aayadda 185 ilaa ma suuradan la yiraahdo suura qadri aayadda 5aad waxaad arki doontaa aayadaha meesha ku dhex jira inay noqdaan 5939 aayadood waxaan ka jarayaa 10kii aayadood oo aan soo sheegno ka hadlaysay leelatul qadriga 5929 soo harta markaas waxaan raadinayaa number loo qaybi karo waxaan helay 77 lagu dhuftay 77 waxay noqotay 5929 subxaanallahi alcadiim marnaba caadi maahan waxaan sii yaraynayaa numberkan waa igu culus yahay waa number weyn 7 u qaybiyey waa number kaliya u qaybi karta weeyaan 12 ay soo hartay 12 kan waxaan ku darayaa 10kii aayadood 12 maaragtaa subxaanallahi alcadiim okay maxaa ku dhiman marka waxaan u maleynayaa cadayntu waa sidaas weeyaan waxaan ku sii darayaa aayadaha quraanka aayadihiisu waxa weeyaan 6236 weeyaan markaas waxaan ku darayaa 112 bisimada ah markaas waxay noqotay 6348 markaas si kale u qoraya waxaan leeyahay 6 lagu daray 3 lagu daray 4 lagu daray 8 maxaad ka arka meeshan u jeedaa 22 subxaanallahi alcadiim quraanka xuruuftiisa idil hadii la tiriyo waxa weeyaan 320 iyo 3670 weeyaan markaas waxaan leeyahay 3 lagu daray 2 lagu daray 3 lagu daray 6 lagu daray 7 lagu daray eber 22 maaragtaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun macnuhu wuxuu yahay cadayn way dhaafta macnaha waxaan isleeyahay anigu marka ma inkiri karo 27ka waa laga yaabaa inuu ku jiro 27ka laakiin malahiga ugu badan aniga qiyaasteeda ugu badan 22ka bisha ayuu ku jiraa ramadaan leelatul qadrigu ilaahayna waafajiyo subxaanahu wa ta'ala waxaana ku talinayaa in waqti fiican loo hormariyo oo bisha waxaan ku soonnaa taariikh waxa laga yaabaa bishii dhalatay inaad ka soonno mar hore dhalatay marka waqti fiican laga hormariyo waqti fiican laga dawamariyo waqtiyadaas la soo sheegan laga raadsho 27 laga raadsho ilaahay nagu anfaco haddii aan xaq asiibo ilaahay igu dambi dhaafo subxaanahu wa ta'ala haddii aan wax qaldan ilaahay cafiyo soomaalina ilaahay ku anfaco ilaahay naga dhigo kuwa xaq fahma kuna dhaqma diinta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu